qofka aad xiraysaan sifa sharciya u soo maro oo idinka warqadii aad ku xiri lahaydeen wato kaale waana ahayd hawsha ma qaban karayna dhaho iska dhiibo xilka halkan waa Dayax Films bismillaahir rahmaanir rahiim kulo wanaagsan cid kasta oo halkan imka barnaamijka daawanaysa xalay waa teen nidhi قبل سجاني دعوة دي كل عضي واتين بحيرين والست توصل وبالتلاف بين كل حد أما ست توصل ورئيسن سيأسر تك الشحق فربنا ذيك الكمكة وحل السويدين يسدي وحد عين محي وحد عين محي تجدد مركا قبل سجاني ولاد كواعب دين عيب فرديا مركلوا السودويننا قبلوا مركبوا الرئيسين السود نحفريسنا Dayax Films kusoo makala dushu ma iska dhaqan walaalkay kaliya la baan ugu dhawahay warinta waa markii ugu horeysay Dayax Films kula soo fadhiisto aad baad u mahadsantahay saaxiib macaan sida wanaagsan idin soo dhaweyseen waan idinka mahadcelinayaa aad baad u mahadsantahay ay ficnaan lahayn inagu barnaamijyo kale iyo kala sugnaan laakiin anagu ka xun daawac iyo dhibta ku soo gaadhay aan doonayna caawa bal inaan wareysano dad fara badan horta inteena wax badan boo guda gelin waxa isweydiinayaan maxay wax u dhacay cidda taag ka darnaato laakiin maxay wax u dhacay yaanka wax ka bilaabay iyo sida wax u dhacay iyo sida wax u dhacay walaal macaan aniga laftay waxay wax u dhacaan ma garanay laakiin sida wax u dhacaan markaa nimaka waan garanay suwax midda raadinaya waxay tahay waxaan u dhacaan way nimaka jawaabteeda sameeyo sax waxay wax u dhacaan waxaan ka soo baxay calaamada way markaan hormarayo hotelka Star way waa center waa meel magaalada ku badan tahay oo de maxay hayday oo lagu caawiyo oo magaran waa goob dhalinyaro sax anigu markaa wadadan marayay waxa yimi askar way maxay hayday warqad maxkamadeed layma siin oo layma tusin digniin layma siinin anigoo fal dambiyeed gacmaha kula jirana layma qaban waxaasaad samaysay layma odhan waa laygu ururay waad garan kartaa qof haddii lagu ururana wuu damqanaya sax adigu markii gacan laygala hadlay la jiiday laamida dhexdeeda waan damqaday runtii ana waxaan isku dayay inaan isdifaaco isyara geejiyo way qaadeen ciidankii gaadhi bay igu qaateen warinadan maxaad igu sidataan baan taale maxaa dhibee jira bal warqada tusaadee cid iga soo dacwootay feerkii laadka iyo xidhku way igu socdaa iyo gacanka hadal gaadhi baa la igu tuqura waxaa la ila tegay saldhigga saldhiggii markii la igeeyo waxaan islahaa ama cid baa kaa soo dacwootay ama fal dambiyeed baa jira aanad adigu ogeyn wuxuun baa dee ilan qof intoo la iska soo qaado saldhig la iskama keensanayo sidaan filaya way noqon weyday halkanaan kursi laysoo yara istaajiyey waa fanaankii waa maxay waa sida magarad already wax layga qorayo iyo wax maxay hayday dambi baad ama kiis baad gashay waan arki waa sax من درس حرنا دليرون بقلب مدي إيسا قلايو فنان كمان سدان أنا معناها وحياة بدي يعني يفرحت جنواي قف معناها كو قرنا يو هذا أنا عن respect كسينين أو حنا أما أذكر شيء عن كل هاي أما وحاسة لجوها يستا وهذا أنا كو قرنا وحنا ويدينا لما يوم حلا يوهيا وحبل ما يستولس كاسيدين يا بافع دي بيرهدي okay ma waxba la iga qoray ma waxba laga qori maayo wad iska baxaysaa wax alla wax la iga qoray iyo wax dhibo la iga sheegtay iyo waxaad samaysay toona ma arag wala id garaacay gaadhi baa la igu qaatay ayad bas ligleeyla tagay wala iska kiisoo daay maalinta ka hor immigration kan tagay laanta socdaalka Soomaaliland waxaan ka dalbaday in ay fasaxaysiiyaan in aan u baxo muqdisho oo markaas aan saaxiib nahay oo aqliyo leeyahay barnaamij ku lahaa
immigration fasaxa muusin waxaan rabay inay warqad fasaxa ay siiyaan maadaama qof dadkiisii dalkiisaba ku xisaabtamayaan aan ahay aan de qof waxaan u ahay fanaan de ummadda Soomaaliyeed oo dhan waa sax haddana saasay tahay waa la isku ixtiraamaa anigoo ixtiraamaya markaa sharcigii ka jiray Somaliland dalka waxaan jeclaystay inaan ka fasax qaato immigration ka laan socdaalka هذا نصيب دركم نقوليسن مع النوادي الضبع أنا ربع إن أنا كبحة هرجيسة مع النبات كيد وأن إن شاء الله عن شليب ما أنت حين عن مركز عن هرجيسة كبحة ديار الراعة ونقضي شوكعه. إيه بيسوق تقول نواتي حبيبي نمدي قعدت يقول على صح. sidoo kale waxaan halka marka aan aad uga raali galnay shacabka reer Muqdisho aan ugu ballan qaaday inaan u imaado insha Allah hadda ay suurta gasho waxaan idin soo qayb gali doonaa showga doorkaas soo dhaca ciidamada marka aad ku qabsaday ama gacantooda kula bulantay ma goobtan istaan oo meesha supermarket iyo police station isku yaalaan ilaalo hayro joogeen mise waa ciidan meesha marayay oo gawaadho watay mise waa ciidan goobta ku sugan ciidan qorto way soo mareen intaan ay qaadin ka hor way garteen صح way dhaafeen صح markay dhaafeen ay socdeen cabaar bay soo kala jeesteen kadib bay xaaladana bilaabantaa dadka qaar waxay leeyihiin horta arrimo fara badan in adiga laftu soo gaadhay ba suurtagal qaar baa marka commentiyada adeegtay ama fariimaha aniga laftiga la soo tiray hadhow lagu leeyahay maada xubsanayna beenaalaad sida weyn ninkan waxay ku leeyihiin qaarkood Khalid Messi baa istiilano gacan kaga dhacday oo xaaskiisu hees la qaaday qaarkood waxay leeyihiin ciidanka rondada akhlaaqiyadka ilaaliya ay qortugan qabto dad timihiisa arkeen gacantay saarayna uu sirigii markii gacanta sare taliyay saldhiga oo quraacada la geeyay ayaa gadista sabab siitay adiga warbixino noocaas ku soo gaadhay warbixino noocaas dadku ay soo gaadhay لكن ده حقوق بتشرت حتى هذا أساس دعوة. إما قاعدين يرى هذا إسكمر يا متى ما الله بحمي الله بحنا. تين لجرا شرع دقيقة متشر. شرع متشر واحد. إنت بدل الوسط ورن شرع دقيقة متشر وقف يوم حبل لقبرن. ها مركزت كلفته واحد مودين أنا واحد بدن أنا يرفع سنة. تذكير كشعب. شرعي ها شرعي إنما آدم فهم سنة تذكر. عمر والبقرة واحد سنة يعني غيرهم كي هدوك دلو يهدوك دايبة. سبحان. صاحب هذا خالد ميسي وكلا محمد بيكي كلهم كبراء ودك محمد بيكي كل كويدين يروح كلا ساكت بخالد ميسي ساكت بيه. محمد بيكي. ولا الكيغوي مركاني ولا الكيغوي حبيبي وايه تن شو قام برنامج عقلي خالد ميسينا حالي ما هبين هره ونودا سعنay oo goobaan ka wada cashaynay baan wada caweynay anaga wala aaban kala tagnay ha waxa jirta tan caqli yaro kale hore Muqdisho oo tagta caqli yaro ha adiga tagay Muqdisho adiga soo laabtay imika Muqdisho safarka tigs dadka laftirkooda qaar waxay isla xiriireen Muqdishadii hore tagtay imika dad dursan Muqdisho tagto ciidankooda soo xariifisay waxay isla xiriireen dadna ay ku leeyihiin inuu ku xudoonaya inuu Muqdisho guuro oo xaga tago sababtoo sabta Muqdisho waan tagay waana ka soo noqday waana tagi doona waana ka soo noqon doona ha hargeysa ha ciidanka booliska imika waxaa jirta warqad ay soo saareen oo Facebook ku arkay oo qaarkood ama ciidanka wala xiriiray qaarkood wala xiriiray waxay gabadh baa la socotay gabadh sugan iyadoo gabadh la socoto ciidanka rondada kulmeen ciidanka rondada ka dhalinyaro meesha joogtay ayay doonayeen inay qabtaan kaxayaan gabadhii qamar sugan la socotay ayaa dabacday inamada halka lagu dhibaatay inay wax ka celiso tanda gabadhii baa askari dhibaaxday askartii gabadh baa isnaafay tabarna isagoo u hiilinaya gabadha la socotay ayuu u yimi askartii ku aflagaatay gacan ka hadal buu sameeyay sidaas ficilka isugu dhacay qof celebrity baan qof bulshada magac kula baan ahay waxaan leeyahay shacbiyad baan leeyahay sax iyagu ma qeynaan baa la socotay boqolaal hablood iyo boqolaal inamood baa garbahayga soo istaaga taageero iyo shacbiyad ay noo qabaan marka taageerada iyo shacbiyada haday annaga wax la yeelo waan xanaaqaya waan dhibsanaya mad fahantaa
وهنتد waxay la socotay habaryartay aniga hooyadii walaasheed bar askarta kamid way garteen waxa taa magaceeda mid kamid uu gartaa hatta kelmada aflagaada ay ka sheegan anigoo gaariga saar runtii de marka awood ma lahayno de garbaha leeyahay laakiin de uu damqanaya qof habaryartii wax laga sheegaya inta waan dhibsaday laakiin awoodaan marka iskaga caabiyo ama aan hadalka aan dhibsaday kaga jawaabi kara ma lahayn aniga habaryartay way ahayd runtii aad baan uga xumaaday waan garanayeen oo wallahi been ku sheegmayo wallahi ilaahay weeyaan way garanayeen oo wallahi aniga way garanayeen oo wallahi waxa walba way fahansanayeen oo wallahi laakiin ma garanayo sababta igu dilay ugu dambeyn dawladda ciidanka hoggaanka tirisbuule dawladdu madaxweyne leeyihiin hoggaan cadaalad baa jirta waxaan ka codsanayaa insha Allah laamaha sharciga xuquuqda insaanka in insha Allah iyo dawladaba ay arrinkayga ka soo jawaabaan haddii kala hawshan way sii soconaysaa maalinba qof celebrity oo ixtiraam mudan ama madaxaba magaca iyo maamuuska laga dili doonaa garbaha la jiidi doonaa ama laamiyada lagu fadeexadeyn doonaa hawshan way socon doontaa dhaawac ku gaaray ishan nimkaan arkin weeye dhaawac ay ka mid tahay horta ishan unbaa imika wax dhaawaca muuqata laakiin dhabarka ay dhaawaceedu u badan yihiin oo badan inaad aragtay mooyaane ciidanku dhabarkay dadka ka dilaa kabihii iyo laadka waxoogaa dhabarka oo nabarro hoosaa mooyaane wax muuqda imika ishaasaa jirta oo badan askartu dhaawac muujo dadka uma yeelaan hoos bay ku dilayaan waxaan leeyahay sharciguna ha shaqeeyo dadkiina anagu sidaan ciidan oo idin jecelahay u jeclaada qofka aad xidhaysaan sifa sharciya u soo maro oo idinka warqadii aad ku xidhi lahaydeen wato kaale waana ahayd hawshaa ma qaban karayna dhaho iska dhiibo xilka waayahay dad baa jira ummad Soomaaliyeed oo la xalay ay laftirkeyga weli soo dhaxleen maxay qabashadas loo qabaa dad badan taageerashada ku guursay inta ku taageerta iyo inta fanka dhageysta iyo ummadda Soomaaliyeed waxaan caawi laga daawanaya maxaa laga qaban wallahi hadalkooda soo kacay been ku sheegi maayo macnaha feedback ama jawaabtii soo celiyeen baan ku bogsaday waxaan leeyahay love you more فايد بان جعله بان الله يكين دايو إذن كان أنا قف إذا كواحد إذن كهدي إذا نشرن من مشرن إن الله السؤال لما أنت صاحب هذا سلامنا وحوها محمد وردي قبل السودان هذا بصوت قانون بين علي الفردي فنان أنت بدن مشهد الصومالي هذا دقيقستان أما وذهانه مدة أفسران هذا الشيء هاي سفر عنه قرينا ففهمنا أن يقبحني برامج كان موريس كان عن حالة دي سجار كحالة دعوة عكسو قاعدين على عيدا كانوا كجول السنة intaas ayaan ku gabagabeynaa nuxur iyo faahfaahin iyo warbixin dhameystiranba weynaysii walaalkeen aniguna waan uga mahad celinayaa aad iyo aad baad mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh